Soomaaliya ayaa u gudubtay marxaladda xisbiyada badan taasoo loo arko xalka kaliya ee looga gudbi karo 4.5 oo muddo lagu soo jiray. Nidaamka xisbiyada badan ayaa fursad u siinaya in shacabka ay soo doortaan cid ayagu ay rabaan, taasoo sare u qaadaysa loolanka siyaasadda iyadoo halbeeguna uu noqonayo yaa wax qabtay. Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka, marka magaciisa lasoo gaabiyana loo yaqaano UPD, ayaa ka mid ah xisbiyada ugu saameynta badan Soomaaliya, kaasoo uu guddoomiye ka yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Xisbigan ayaa waxa uu si weyn ugu fiday amaba xarumo uga furtay qaar ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya iyo sidoo kale wadamada dariska la ah Soomaaliya si afkaarta siyaasadeed iyo waxqabadka xisbiga loo gaarsiiyo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadamadaasi. Haddaba magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda waxaa laga hirgeliyay xafiiska xisbiga UPD, kaasoo xaflad ballaaran oo daafur iyo caleemasaar isugu jira ay halkaasi ka qabsoontay si fursad loo siiyo dhalinyarada Soomaaliyeed oo la sheegay in 70% ay bulshada ka yihiin. Ayaa madaxda xisbiga oo ugu horeeya madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa uu hogaamiyay xisbiga qaybta Uganda u magacaabay Cabdirashiid Wadaadyare oo ah shaqsi dhalinyaro ah oo markiisii hore u dhaqdhaqaaqi jiray arrimaha bini'aadanimo. Master Wadaadyare ayaa waxa uu ahaa aasaasaha ururka Ayadoon oo ah ururkii u horeeyay ee waxbarasho bilaash ah siiya danyarta ku xareysan kaamamka ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa uu Cabdirashiid qayb weyn ka qaatay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan siyaasad qaran, isagoo kala shaqeeyay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya in siyaasadaasi loo dhan yahay ee dhalinyarada Soomaaliyeed la horgeeyo golaha wasiirada, taasoo ugu dambeyn ay saxiixeen. hadal badan ma ii furno, caawo waxay noo tahay caawo farxadeena iyo la soo koobi karin. waa caawo ay anigu aan ii tahay shakhsi ahaanteedu dareenkaygana ii tahay inuu curadkaygii koowaad ii dhashay ay ii tahay, maadaama xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka oo maanta dalka Uganda laga furayo, laga daafurayo, sidoo kale xildhibaano qaran ay noo joogaan, noo imaadeen annagoo dhalinyaro ah. midda kaliya aan ku farxo cid walboo dhalinyaro ahna tusaale u ah waxay tahay waxa xalfadan soo qabaqaabiyey waa xisbigan mas-uuliyiinka ah, waa dhalinyaro. taasina waxay maaragtay xisbiga UPD wuxuu gartay awoodda dhalinyarada ay leeyihiin oo gartay dhalinyaradu inay yihiin kuwa maanta dalkan badbaadi karaa, fursad in la siiyana ay tahay ayuu xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka UPD gartay. waxaan leeyahay fursadaas ka faa'iideysa ay u baahan tahay xisbiga UPD-na wuxuu leeyahay soo dhawaada dhalinyaro UPD insha Allah taala 2000 iyo maaragtay 30 iyo meelahaas Cabdirashiid oo madaxweyne ah oo xisbiga UPD u tartamayna waa arki doontiin. Gudoomiyaha xisbiga UPD ahna madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hambaliyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee had iyo jeer u heelan sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorasho xor iyo xalaal ah. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bahweynta UPD ee dalka Uganda ee caawa kulanka ku leh, xafladda ku leh, maxaan ku raaddaa damaashaadka iyo maxaan ku raaddaa daafurka ku leh magaalada Kampala ee caasimadda Uganda. dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan sidoo kale salaamayaa wafdiga ballaaran ee sharafta leh ee madaxda UPD ee idinla joogta oo ayagana runtii meel ciriiri ah, waqti ciriiri ah, howlo aad iyo aad u tiro badan oo kuwa dal iyo kuwa xisbi iyo kuwa gaar intaba leh ka soo dhaxbaxay si ay maalintan idinla weyneeyaan oo bahnimada UPD ay u xaqiijiyaan. waxaan idin leeyahay dhammaantiin hambalyo, shaqo aad iyo aad u ballaaran oo weyn ayaad soo qabateen. dhallinyaradiina waxaad daliil u tahay dalkaani waxa wax ka qaban kara inay dhallinyaro tahay ayaa daliil u tihiin. sidoo kale akhyaarta, gabdhaha, haweenka, maxaan ku rahaa ragga, odayaasha, ganacsatada, dhammaan garab istaagay qadiyadda ama fikirka UPD aad iyo aad ayaan u salaamayaa, waa u mahad celinayaa. waxaan leeyahay tusaale fiican ayaad noqoteen, hambalyaan idin leeyahay, howl wanaagsan ayaan idin leeyahay. waxaan si gaara rabaa halkan inaan u xuso adika oo dhammaantiin wada qiimi badan, dadaal badan, karti badan, yacni daacadnimo iyo aaminaad maxaan ku rahaa mabaadida xisbiga UPD aad aaminsantihiin ay idinka muuqata, haddana
ninka la yidhaha wadaad yare dadaalka uu sameeyey iyo isku xirxidhka uu sameeyey iyo maxaanku irahda culaysyada ciriiriyaasha qaarkood uu xambaaray intaba waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad ayaad shaqo fiican u qabatay ragga kula shaqeeyey gabdhaha kula shaqeeyana aad iyo aad ayay ayagana shaqo fiican u qabteen waanay mahadsan yihiin dhammaantiinna wadajirka collectivity-ga yacni wadajirkaad macna ku leedihiin haddana macnaha aad leedihiin aad ku soo gaarteen xafladda lagu daafurayay xarunta xisbiga UPD ee magaalada Kampala ayaa waxaa goobjoog ka ahaa waxgarad aqoon-yahano siyaasiyiin indheergarad oo dhammaantood bogaadiyey dadaalka dadka shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Uganda iyo sida ay diyaarka ugu yihiin in wadanka uu gudbo nidaamka axsaabta badan xildhibaan Axmed Macalin Fiqi xildhibaan Maxamuud Beene iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Madaale ayaa la hadlay shacabka Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay madashaasi mudane wadaad yare iyo tiimkiisa waxaan leenahay 1001 jeer waa mahadsantihiin ifafaaluuna waa muuqdaa 2000 deeqon waa iska fogeeyey anigu waxaan badhiilay 2030ka dadka u tartami doonay naqa doonaan haddii Ilaahay yiraahdo maxaa yeelay waa tijaabina waan aragnay intaa kadib salaadiinta ugaasiyada hooyooyinka gabdhaha qaaliga ah wiilasha xildhibaankii hore xaraari iyo dhammaan akhyaarta halkan fadhido iyo ganacsatada jaaliyadaha ardada kulligii waxaan leeyahay waa mahadsantihiin qiimo weyn inoogu fadhidaa inaan marqaati ka noqono daahfurka xafladan weyn ee quruxda badna ee intaan oo shacbi aqoon-yahano ah gabdho iyo wiilal ganacsata iyo siyaasiyiin ay ka soo qayb galeen inaan marqaati ka noqono hadhow markaan dib ugu noqonana aan ka sheekayno wixii halkan ka dhacay mabaadi'da waxaa ka mid ah hirgelinta isbeddel siyaasadeed oo ku dhisan nabad horumar cadaalad iyo sareynta sharciga magaalooyinkii waa dadkii waa kaafi waayeen ideology iyo nidaam xukun baa yimid nidaamka xukunka waxaa qasab noqotay in axsaab ay timaado oo dadku mabaadi' isugu xirmaan marka tol siyaasadeed weeye xisbi haddaan maqashid meeshii tolka kale iyo qabiilka kale dhalashada u ahaa siyaasadda tolkee ku biiraysaa waay axsaabtu halkaasay ka dhigan yihiin waa tol siyaasadeed oo ku bahoobaya inay barnaamij ay samaysteen oo degsadeen oo isleeyihiin baahiyada dalka iyo nidaamka siyaasadeed ee dalkaad uga shaqaynaysiin inay soo bandhigtaan oo sidaas codka lagu siiyo ama loogu diido oo ay xukunka sidaas ku tagaan tolkaas siyaasadeed baan dhidibada u aasnay si aan uga gudubno nidaamkii kiileynta qabiilka ee siyaasadda Soomaaliya ee dheertiga ee runtii la degay quality dawladnimadeena ayuu la degay halkaas marka maantay in faracaana uu noqdo inay dhalinyaradii ku qancaan xisbigii Muqdisho iyo Soomaaliya gobolladeeda ka jiray dhalinyaradii intay axsaabta fiiriyeen inay yiraahdeen reer Uganda reer Kampala dhalinyaro ka mid ah oo aqoon-yahana iyo rag iyo dumar ba isugu jira inay yiraahdaan waxaan ka dhex xulanaynaa xisbiyada jirana xisbigaasna waa ku mahadsan yihiin annagana waxay noogu xafiiskan cusub ee laga hirgeliyey magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa la filayaa inuu isku xiro xisbiga iyo taageerayaashiisa ku sugan wadankaasi waxaana muddooyinkii u dambeeyay xisbigu ballaarinayay xafiisyadiisa uu ku leeyahay dalka iyo dibadda si shacabka Soomaaliyeed loo gaarsiiyo afkaarta xisbiga